kulanti wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Akhbaaraadka maantadan ugu doorka xulanna waxaa ka mid noqon doona markab sida hub iyo shixnad kale oo military oo ku soo xirtay dekedda Muqdisho iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo dagaal isku diyaarinaysa. Itoobiya oo sii hurinaysa xiisadda ka dhex xulsan Soomaaliya waxaa loo laaban doonaa Carte iyo Mbagati mise waa la mirsan doonaa. Siciid Dani oo hanjabaad kulul soo diray Soomaalida dhexdeeda oo Itoobiya dab ka dhex shidayso. Masar oo soo saartay amar culus oo ka dhana Somaliland. Muxuu yahay amarkaasi iyo Somaliland sababta ay weli ugu dhagan tahay heshiiskan Itoobiya ay la gashay oo sida adag loogu hor yimid oo markii ugu horeysay la ogaaday danaha ugu jira iyo tallaabooyinka sida hoose ay u qaadayso maamulka Somaliland. Qodobadaas ayaan si gaar ah ugu faaqidi doonaa barnaamijkeena. Laagsaar muuqaalkan lana wadaag saaxiibada kale una diyaar garooba goordhow qaybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena. Ilwariyo ku sugan dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in markaasi dowladda Soomaaliya ay la soo degtay markab sida hub aad u badan oo nooc walba isugu jira. Hubkaasi waxaa keenay markab nooca dagaalka ah oo ka yimid dalka Masar waxaana lagu daadgureeyay gaadiid waaweyn oo nooca ciidanka qalabka sida kaasi oo dowladda Soomaaliya ay leedahay. Hubkan ayaa wararka qaar waxa ay sheegayaan in dowladda Masar ay siisay Soomaaliya halka wararka kalena ay sheegayaan in Soomaaliya ay hubkan soo iibsatay. Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa loo daadgureeyay hubkan laga soo dejiyay dekedda magaalada Muqdisho. Wadada ka baxda dekedda Muqdisho ilaa iyo inta laga gaarayay wasaaradda Gaashaandhigga ayaa la xiray waxaana marayay kaliya gaadiidka hubka siday. Weli wax warar kama soo bixin dowladda federaalka Soomaaliya kuna aadan hubkaasi dalka la keenay iyo qorshaha ay ka damacsan tahay, balse waxaa jirta saansaan dagaal. Dowladda Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa inay ka jawaabto daandaansiga Itoobiya haddii ay isku bedelo gacan ka hadal. Waxaana jira dowlado caddeeyay in Soomaaliya ay ku garab taagan yihiin hiilo military haddii ay timaado gacan ka hadal. Sidoo kale hubkan ayaa dowladda Soomaaliya waxa uu ka saacidayaa in ay ka adkaato kooxda Al-Shabaab oo ay dagaal adag kula jiraan gudaha dalka. Geesta kalena kadib markii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud diiday ku dhaqanka dastuurka lagu doortay, dhinaca kalena uu wiiqay awooddii kursiga ra'iisul wasaaraha oo uu ka dhigay mid uu isagu eryi karo, dhanka kalena uu hor istaagay in maamulada doorasho qabsadaan, ayaa waxaa soo xoogeysanaya walaaca ku saabsan in dadka Soomaaliyeed ay ku sii kala fogaan karaan dhabaha uu wax ku wado madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ku dhowaad 10 gobol oo ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa ka aloolsan dagaalo qabiil. Dagaalankii Al-Shabaab oo uu joogsaday xukunkii waxa uu gacanta u galay dad xoolo doon ah, midnimadiina waxaa la doortay qabyaalad iyo inay dowladnimadii dad gaar ah ay sheegtaan, waxaana abuurmay rajabeel dowladeed oo xoog leh. Waxaa intaas dheer in aanay dadka Soomaaliyeed weligood dab uga heshiinin colaadihii soo dhex maray, balse taasi beddelkeed waxaa la isla qaatay markii Carte la isugu tagay sanadkii 2000 si dowladnimo loo gaaro in tabashooyinka kale aanan la soo faagfaagin. Buuggii yaraa ee ay Soomaalida ku wada joogtay waxaa haatan ku dhaqankiisa diidan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dhammaan arrintan oo lagu kabay musuq ku baahan gudaha dowladda, xilalka lagu tixay dadka aanan u qalmin, iyo in madaxweynaha uu dhinac iskaga riixay in uu dooda ka galo caqabadaha muuqda albaabadana ka soo xirtay saamileydii kale ee siyaasadda Soomaaliya. Waxa ay ku siinayaan dhammaan arrimahan in loo baahan karo in ay Soomaalida dib ugu laabato shirka dib u heshiisiineed oo lagu qabto dalka dibaddiisa. Reer Puntland si weyn oo aanan horey u dhicin 20kii sano ee lasoo dhaafay ayay haatan ugu miirmeen dowladnimada federaalka Soomaaliya. Sidoo kale reer Koonfur Galbeed ayaa muujiyay silig xoog leh oo ay ka qabaan dowladda federaalka Soomaaliya. Dadka Gedo ka soo jeedana waxa ay tirsanayaan in dowladnimadii Soomaaliya lagu qadiyay Somaliland waa ay ka sii fogaatay halkii ay markii hore joogtay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma ahan mid xilligan ku mashquulsan wax ka qabashada caqabadahaasi waaweyn, waxa uuna madaxweynaha ka badin la'yahay qancinta dhowr qof ee ku hareeraysan isaga ama qoyskiisa ka tirsan. Hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay madasha PDRS waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka inay wax ka bedelaan sida ay howshan ku wadaan
oo aanay dalka iyo dadkaba mar kale ku qasbin in loo baahdo shirar dibadda lagu soo heshiiyo oo dalka dibaddiisa ah, sida magaalooyinka Carte iyo Mbagati oo horey uu martigeliyey shirarkii dib u heshiisiineed ee Soomaalida xilligan kasta yar ee ay dowladnimada haysato ay ku dhaqdhaqaaqaysa halkaasi lagu soo dhisay. Dani waxa uu intaa ku daray in haddii habdhaqanka xukunka wax laga bedelo oo ay madaxda si mir lagu shaqeeyaan, in laga baaqsan karo in loo baahdo shirar kale oo dib u heshiisiineed oo lagu qabto dalka dibaddiisa. Hadalka Siciid Deni ayaa ah fikrad ay doodeedu maalmahanba dhex taallay dadka Soomaaliyeed, waxaana u sababa rajabaalka laga qabay xukunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan keliya isku koobay. Dowladda Masar ayaa soo saartay amar ay uga digayso muwaadiniinteeda inay ku safraan Somalilan xilli dhowaan ay Somalilan xirtay maktabkii Masaarida ee Hargeysa ku yiilay. Masar ayaa waxa ay ugu baaqday kuwa hadda ku sugan gudaha Somalilan inay uga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan iyagoo adeegsanaya garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa. Safaaradda Masar ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in tallaabadan la qaaday iyada oo la eegayo saameynta nabadgelyo la'aanta ee ay ku leedahay ammaankooda xilli ay xiisadda labada dhinac ka sii dartay kadib heshiiskii Muqdisho iyo Qaahira. Sidoo kale waxa ay safaaraddu ugu baaqday muwaadiniinteeda doonaya inay u kala gooshaan gobollada Soomaaliya in ay si buuxda ugu hoggaansamaan habraacyada ay go'aaminayaan hay'adaha awoodda u leh ee dowladda Soomaaliya. Tallaabadan oo muujinaysa heerka ay gaartay xiisadda ka dhalatay heshiiskii 1 Janaayo ee sanadkan ayaa Addis Ababa ku saxiixdeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed, kaasi oo Itoobiya oggolaansho u siinaya qayb ka mid ah in ay qaadato biyaha Soomaaliya. Waxa ayna sidoo kale ku soo aadaysaa toddobaad kadib markii Somalilan ay albaabada isugu laabtay maktabka dhaqanka Masar ee Hargeysa, iyada oo markaasi shaqaalaha ka howlgelayay u qabatay in Somalilan ay uga baxaan 72 saacadood gudahood. Somalilan ayaa ku eedeysay dowladda Masar inay ka soo horjeesatay madax-bannaanideeda kadib markii ay Masar heshiis difaaca la saxiixatay Soomaaliya oo haatan ay hayaan dowladda Itoobiya.